الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمر كلا إيا برنامج سوغانيت كيني أي نوصو ديار سيدارس waxaynu kalkan ku soo qaadanaynaa qaybaha kala duwan ee afka maldahan iyo qaybihiisa marka laga waramayo horta waa quruxda afka af marka la qeexayo hadaan yaro hordhac ka horeysiino iyo maldahaad afka qaybaha loo qeexo waxa kamid ah afku waa dhawaaq kasta oo macna sameeyo dhigaal loo rogi karo afku waa waxa aadamuhu isku garto siday mahmaha Soomaaliya tira dadkuna afku isku garta hadalka xayawaankuna urtu isku garta marka afku bari waxa qofka uu maankiisa iyo maskaxdiisa ku jira wuxuu cid kale u sii marin karo ama ku gaarsiin karo isku soo wada duubo afku waa waxa dadku isku fahmo ku wada dhaqmo wax isugu sheego isku afkarto kiiba hadaba la maldahay ereyga maldaha dhowr erey macno leeyahay dhowr erey buu la macnay waa la maldahay waa la saynsaabay waa la sogordahay waa la saamadeday waa la shareeray hubaa la huwiyay la macna waa la qariyay hadaba waxa isweydiinay haduu hadalku yahay wixii la isku garanayay maxaa loo qarinayaa maxaa loo maldahaya laba ujeedo baa looga leeyahay mid waa afshaxanimo iyo qurxin afka loo yeeliyo laba erey baa kala jira afshaxan iyo farshaxan bay dadkeenu isku khaldaan afshaxanku waa iyadoo af wax lagu qurxinayo halka farshaxankuna yahay iyadoo far wax lagu qurxinayo hadii marka halkaas samuurada aan geed qurux badan ku sawiro waxa la oranaya waxa sawirey farshaxan farshaxamiisti ama in English arts wax lagu dhaha marka marna gacan baa wax lagu sawiraa waa farshaxan ama dadka gacanta wax ku qora tusaalaan bahalkan mooyaha iyo koorta iyo dadka qorahan goolka iyo budka iyo qof farshaxan way yiraahdaan marka waa wax gacan lagu qurxiyay ama gacan iyo wax af lagu qurxiyo afshaxana waa ereygii baartay marka kood waa afshaxanimo iyo qurxin hadalka la qurxinayo marna waa dadid hadalka la wada dadayo iyadoo la rabo in aan dulucda hadalkan xambaarsan ama hawraartan xambaarsan tahay cid walba fahmin ode nin inan amaanaya le sida meel barwaaqa oo buura dheer wabi baal marayo barbarkana daruuruhu kaga beegayino waaguna bariyaayo oorto yaad ila bilic tahay oo kala weeye maagtahay marka qofkii buu u eekaysiinaya sawirka quruxda badan ayuu inantii barbar dhigaya gabadh yahay dayaxa sheeqisay nuurka lagu daahay indhahay daraandaray kolkaan dayay dhankaagaase madir baad wadaagtaan jannada duulkii lagu beeray marka waa afbuu ku qurxinaya gabadhii mar waa afshaxanimo iyo qurxin humaag mara waa maldahaad guud oo hadalkii baa la rabaa inaan cid loo daleeyahay mooyee cid kale ba ogaanin tusaale ahaan nin baa gabadhiisii dhaliilaya dhaliisheeda in cid waliba ogaato ma rabo adeerkeed buu shax la ciyaaray dadna wuxuu yiri gamaankiina faytiino gobolba waa cayn saahid qamaan cali baa loo jiray qaar baan ka goor iyo ka goor godolka deynayn qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalan gabax lagu shakaaliyo sangiye gaabay orodkii garan weyne neefkaad kal hore nagu gulaasheen gacalnimo hadaa naga rabtaan go'aha noo doorsha hadii kala sidaad noo gasheen yaa inoo godobe wuu gartay dabadeedna inuu gabadhan saahid qamaan cali ka cabanayo ninkan uu shaxda la ciyaarayna faytin baa la oran jiray inanta adeerkeed buu ahaa markaas saahid inantii faras buu ku tilmaamay gabdhihii deegaankooda gamaan buu ku tilmaamay isla sideedii buu ugu jawaabay wuxuu yiri hadal gaara faytin baa yiri ayay saahidow gobila yeedhaay nin gamaan yaqaana maqasha waa gaasa bixiyaay waa laba iyo deyrjir aan fuulankeed gelini waa taagankeedii guryaha loogu cawskuriye haduu nadigu gubo neefka yari wuu jiray gariiraaye maxaad nagu galaysaa hadaad fuulma garan weyday niman farda ka wada hadlayay dadku moodayaan laakiin farda kama wada hadlayaan haween iyo gabadh bay ka hadlayaan marka waa hadalka qaybka loo maldaho ee maldahaadi guuda marka waxaan nidhi labada qaybood hadalka loo maldaho mid waa hadalkii baa la wada qarinaya cidii loo wadi mooyeenan cid waliba ujeedada fahmin midna waa qurxin marka afka maldahani 12 qaybood buu ka kooban yahay aan ugu soo horeysiina sida uu kala fudud yihiin qofayn
maxaa la qofeeyaa dee waxaan qof ahayn ilaa qof waaba qofe waxaan qof ahayn baa sidii qofka loola hadlaya loola doodaya fariin la faraya ama loola sheekaysanaya marka waxa la yiraahdaa qofayntu waa iyada oo waxaan noolayn ama aan qof ahayn sidii qofka loola hadlayo loola doodayo fariin loo farayo tusaale ahaan shimbiriyahow ma duushaa ma dabayla raacdaa dadka ma u adeegtaa dalyaqaan ma tahayoo meeshii laguu diro dowgeed ma garataa shimbir aan buu sidii qofka ula hadlay inuu fariin faro na waxaan noolayn oo dabayla buu la hadloo dabayl yahay inaan ku dirtaan rabaa waliba degdegtaan jeclahay fariimahan daada qaadoo u dir danabkaan jeclaabay gabadhi tiri marka qofayntu waa hadal ama hawraar lagu odhanayo waxaan noolayn ama aan qof ahayn cigaal shiilaadoo habeen guuraynaya ayaa kurtin meel laan laga jaray geed ku soo baxay bahal buu mooday cigaala nin nabad jecel buu haayo wuxuu yiri warba halkan ma adaa dilaa ma isaga ku dilay wax gidiga habeenkii buu ka taagnaa markuu waagii bariyay buu gartay inuu waxaan kurtin yahay wuxuu xal oo dhan kama taagnaa kama tagina uu kaado wuxuu yiri ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaa loo noqon doonin waxaan ku mooday bahal wax saad noqotay geed wax si aan loo noqon doonin guura habeenimo dambe sidii qofkoo kale geedkii ula hadlay marka qofka madahani waa badweyne 12 qaybood qayb walba laba tusaalo fahanka soo dhaweeya ayuun baynu ka soo qaadanaynaa waxa jirtaa qaybta la yiraahdo buunbuunin waa iyada oo wixii sidii uu ahaa si ka weyn loo oranayo ama loo qorayo carabka lagu koryeelaya qof baa faanaya awoodantiisa hayn buu sheeganaya anagu saada hurudaan hoos subaxadaan toosno sanku neeflo waan qaban karaa saacadii iyo week ilaahay awoodiisa weeyaan sanku neefle macalibaxiyadii baa ku shariya quraanjadii inta saacadii week lagu qaban karo gabadh buu amaanaya gabadh buu sheeganaya dhibta darteed soo gaadho wuxuu wadnaha isarano sanbabada iqalano dhiiga saydhinaye ma waa dhimatid haday sidaa wax ku dhaawac ku gaadhi marka waa buunbuunin dareenka uu gabadha u qabo buunbuuninayo qofna de waa la amaana markay maqan tahay magaalada dhamay mugdi weeyo way madowdahay marka buunbuunintuna waa hadal caynkaas oo kala isaguna loo dhigayo waxa jira ekeeye waa isu ekeeye marka laga waxa la waa isu ekeysiinta laba humaag marka laba humaag la isku ekeysiinaya ama xiriir laga dhaxaysiinayo tusaalahan labada waxa la isku ekeysiinaya waxbay wadaagaan ekeeyo wuxuu leeyahay 4 eray waa qalab qaab oo eke loo eke تحية تراب وليه قلب كوا إريو أي كمديهين سدا لمودو عينك قابك أو مركي لديك تهينا قابد نقولنا تبتا erayadaasi haday meesha soo galaan waa qalabka isu ekeysiinta qaabka isku ekaanshiyaha labadan wax isaga eegyihiin sidii cirku hore meel cusub loo cadceedi u soo baxdaa tahay tabtii layla iyo qays isu tabinay sheekada sida la moodo caynka ay gugooda ay geedaho baxay galgalima xareedoo galacloo garaariyalabaad gadoodii toon lagaa garan buu macnaha wuu isu ekeysiinaya hadaa marka lagu muujinayo caashi waxa u socotaa sida hooyadeed tana caasha ama caashi waxa ay u socotaa sida hooyadeed hadeen la 4 ku muujiya caashi waa u eke
socodkuna waa qaabkii la iskaga ekaa siduna waa qalabkii isu eekaysiinta haye hooyaduna waa loo eke caashi waxay u socotaa sidii hooy marka u eke iyo loo eke iyo qaabkii la iskaga ekaayo socodka iyo sidii halka marka sidii ba isbedbedesho caashi markay socoto hooyadeed baa la moodaa caashi waxay u socotaa qaabada hooyadeed caashi waxay u socotaa nooca hooyadeed caashi waxay u socotaa gedda hooyadeed caashi waxay u socotaa tabta hooyadeed qalabku waa ereyada isbedbedelaya isku wada midka ah marka sidii yeyda hawd hurdada melado ilbaan ka hurdaa habeenkii marka sida la moodo tabta qaabka waa ekeey laba wax baa la isku ekeysiinaya libdhadoo soo baxdiyo lagu mood laydha subax libdhadu waa magacyada cadeeda loo yaqaan ama qoraxda cadceed qorax libdho dhalco ereyada isku wada midka ah waxaa jira silan sugan waa laba erey oo iska soo horjeeda ciwaankeenu silan suganta marka la qeexayo waxa la yiraahdaa silan sugantu waa laba erey oo ujeeda ahaan iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira macaan iyo qaraar meel ku wada jira nacayb iyo jacayl meel ku wada jira udgoon iyo qarmoon meel ku wada jira u fiirsa qabow iyo kuleyl meel ku wada jira waxaan ahay nin aragaaga nacab aadna kuu jecel anoo dhaxan qabo dadkoo dhaxan qaboodhada qoysay baan anuu dhididaya waxaa la mid ah anoon lagiya darab quudanoo subagna leefaynin nin ladaadiya qabataan ahoo laqaya haysa laqwiyo xumaan kuma hadloo been ma laasime runna waaban kala leexaniyo qowlilaahi oon baa idilay biyana waan ku ag wareegay aradkana dadkuma u heshanayn urura waan joogay marka waa silan sugan waa laba erey iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira waxaa ka mid ah afka maldahan shareere shareeruhu waa eekeeyaha oo xeel dheer maxaan ka wadnaa eekeeyuhu waa shareeraha oo xeel dheer horta shareere marka la qeexayo waxaa la yidhaha waa heerka ugu sarreeya ee isu eekaysiinta laba humaag ama laba muuqaal tusaale ahaan shareeraha waxaynu markaynu eekeeye maraynay eekeeyaha labada waxa la isu ka eekaysiinayaa meel la weysaga eegyihiin inta kale way ku kala duwan tusaale ahaan caashi waxay u socotaa sida hooyadeed waa eekeeye oo caashi iyo hooyadeed waxay isaga eegyihiin socodka ase haddaan idhaahdo caashi waa hooyadeedoo halkan taagan waa shareere marka laba siyood waa loo qeexayo mar waxa la yiraahdaa waa heerka ugu sarreeya isu eekaysiinta laba humaag marna waxa la yiraahdaa shareeruhu waa eekeeye qalabkii iyo qaabkii laga saaray haddii qalab iyo qaab laga saara wax isku soo hadha u eekiya loo eeke ardayahay cilmigu waa iftiin aadamaa hagi ee buuri cilmigii iyo iftiinkiibu midhiskaga wuxuu isku dhigay waxaan la kala saari karin ardayahay cilmigu waa iftiin aadamaa haga marka iftiinkii iyo aqoontii uu isku shareeray macalinka isagoo ka hadlay xaajaadan afqalooc buu yidhi waa kuwa afkaad ku hadashay iyo odhaahda liisaan waa ubaxa kii korinayee aaminka ahaa shareeraha cumar australiyo geela iyo lafta dhabarka isku shareeraya baa wuxuu yidhi waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameel waa waxtarkii geel iyo waxtarka lafta dhabarka faa'iidada lafta dhabarku jirka u leedahay iyo wuxuu isku shareerayaa faa'iidada geelu bulshada u leeyahay xilligaa noolay mar kale adkaysiga dhagaxa iyo adkaysiga geelu isku ekaysinaya wuxuu yidhi waa dhagax naf loo hayjadaa dhigay ilaahay marka waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameel waa dhagax naf loo hayjadaa dhigay ilaahay waa shareere ninbaa saahid qamaan cali baa wuxuu yidhi ayaa noolba tii qaylisaa waa iblays falane irdhaqaada aashaana soco aayar hadalkaaga
is ogow afkaagana yasira edabtu waa door marka mar edabtii iyo wanaagii buu isku shareeray marna gabadha qaylada badan iyo ibliiskii buu isku shareeray shareeruhu waa heerka ugu sareeya isu eekaysiinta laba humaag ama laba muuqaal intaan qaybaha dambe afka maldahan iskugu imanayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh